marka loo eego cilmiga, cuntooyinka caafimaadka qaba oo ay ka mid yihiin 8 waxay ka caawinayaan in la xadido heerka sokortaada ay gaarayso. Xitaa waxay kuu suurtagelinayaan in laga roonaado ama laga soo laabto kicidda sokorta degdega ah ama dhawaangalka ah. Boorashka. Inta badan 4 gram oo fiber ah ayaa koobka ku jirta nooca la fududeeyay ee boorashka mirmiraha laga dhigay, loona yaqaan afka qalaad steel cut oats. waana kan ugu fiican ee cuntada dadka qaba macaanka ay cunaan. Sababta cuntadan loogu doortayna waxa ay tahay in marka aad cunto cuntooyinkan dahaarka leh ay sameynayaan sokorta dhiigga tartiib ugu soo daayaan, waxayna sokorta ka dhigayaan mid degan dadka qaba sokorta nooca 2. boorashka waxaa loo qaybiyaa 3 nooc, waxayna kala yihiin mid fidsan rolled oats, mid ka sii fidsan quick instant oats, iyo mid mira ah oo loo yaqaan steel cut oats. ugu dambeyn, cun cunooyinka kala duwan ee boorashka oo sokortaada ka dhig mid aan kicin. Qolfaha. Noocan qolfaha inta badan waxaa lagu darsadaa shaaha, laakiin meelaha qaar waxaad ku arkaysaa asagoo lagu darsanayo bariiska ama baastada ama waxyaabaha kale ee la cuno. waxaana ku jira compound loo yaqaano hydroxychalcone, waxayna ka caawinayaan curiyaashan meelaha dhacaanka insulinta unugyada ay ka qabsanayaan. sidaas ayaa waxaa dhicaysa in awood loo yeesho in la nuugo sokorta. 2019 warbixin lagu qoray International Food of Science waxay sheegaysaa in haddii 1 qaado ama 2 qaado oo qolfa aad ku darsatid cuntadaada ama shaahaaga ama kafeegaaga maalinkii, ay leedahay natiijo wanaagsan oo sokortaada inay degto ah. 3. Canabka. canabka waa miro macaan leh, sidoo kale diir leh, waxaana caafimaad ahaan la yiraahdaa waxa uu muhiim u yahay in la xadido sokorta dhiiggaaga iyo weliba inaad nafaqo ka hesho. 4. Saliid saytuunka. saliidan waa mid ay ku yartahay faatiska ama dufanka, waxayna kor u qaadaysaa dareenka macaanka ama dhacaanka sokorta burburiya ee insulinka. warbixin ay soo daabacday Diabetes Care Page-kaas 2019 ayaa lagu sheegay in dadka cuntooyinkooda ay ku jirto saliid saytuunka sameeyana jimicsiga in sokortooda ay xadidan tahay. sidaasi mid la mid ah cuntooyinka dufanka ku yaryahay waxay ilaaliyaan ama ka hortagaan cudurrada ku dhaca wadnaha, dhiigkarka saa'idka ah, dufanka jirka oo bata, iyo xayrta caloosha oo saa'idka ah, taasoo sababta in qofka uu riski ugu jiro kolestarool ama dufanka oo bata iyo sokorta nooca 2. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. haddaa ka heshay subscribe dheh, gomboleelka furo, like saar, asxaabtaadan la wadaag, lana soco muuqaaladeena kale ee xiga yaan dhawaan soo gelin doono. mahadsanid, wabilaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.